السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي وناكسن أصحابي ميل كستو هاتشوكتان سودو هذا برنامج كينا سدحات وهبين نمو 4 وخميس أي سوق ليسو تاريخ دونو سدح يلاباتك أبريل سنة كالاباكون يسان يلاباتن برنامج كعاو حاكو سوق بين دورنا وراركي ووينا إدعي تانيو إنتينو كلا مغنين قضبادا وركا عاوان إذي كوغا يوحا كميدا tirada dadka Falastiiniyiinta ay ku dhintay Gaza maanta oo sii korortay saacadihii la soo dhaafay kadib markii Israa'iil ay xoojisay weerarada dhinaca cirka ay ku qaadayso magaalada Gaza. waxaa sidoo kale barnaamijka aad ku maqli doontaan dab xoog leh oo loo caalwaayay oo ilaa hadda ka socda inta u dhaxaysa Qudus iyo magaalada Tel Aviv magaalooyin iyo tuulooyin fara badan oo dadkii Yahuudda ah laga rarayo dabka oo aan la garanayn waxa kiciyay hay-adihii dabka ka shaqeynayay inay damiyaan oo goordhow ku dhow inay gacmaha taagaan. haddaba xaalka Israa'iil oo markaa cabsi weyn ay dadku soo food saartay ma musiibo bini aadannimo ayaa halkaa ka kacday mise waa ciqaab ka mid ah waxyaabaha Allah subhanahu wa ta'ala uu ku ciqaabo adoomadiisa marka ay xadgudub ya sameeyaan. haddaba su'aalo badan oo dadku ay iska weydiinayaan sheekada iyo baraha bulshada oo warar kala duwan oo dabka ku saabsan aan idin soo aruuriyay ayaan barnaamijka ku soo gudbin doonaa. waxaa soo kale barnaamijkan idinku hayaa ehelada iyo qoyskii uu ka soo jeeday askarigii maanta ay ka hadal siiyeen Al-Qassam oo war cajiiba soo saaray iyo sidoo kale Netanyahu oo mar kale sheegay in ay lagama maarmaan tahay in markasta laga hortago waxa uu ku tilmaamay Iran iyo sharwadayaasheeda sida uu yiri. qodobada ayaynu barnaamijkeena caawa ku faahfaahinayna waan hubaa inaad si weyn uga bogateen macluumaadkii iyo xogihii aanu ku soo gudbinay barnaamijyadaydii saakay iyo kii galabnimo labadaba. haddaba intaan ku jirno barnaamijka wixii warare soo kordhana waan idin la socodsiin doonaa. Safari Remit waxay ka caawinaysaa inaad reerkaaga iyo saaxiibada ku nool dalal dhowr ah aad gaarsiisid wixii aad ugu tala gashay. ilaa iminka wadamada ay xawaalada kugu diri karto waxaa kamid ah Kenya, Soomaaliya, Uganda, Djibouti, Ethiopia, Sudan, South Sudan, Tanzania iyo Turkey. qiimahana aad ayuu u jaban yahay marka loo eego shirkadaha kale ee ka shaqeeya xawaalada. xawaaladan waa online internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah. dhammaan bulshada waxaa lala socodsiinayaa gaar ahaan magaalada London in xarunta dhinaca caafimaadka French and Overseas Clinic ay ku taalo meel aan ka fogeyn stationka tareenka ee Baker Street ee bartamaha magaalada London. halkaa waxaa jooga dhaqaatiir kala duwan oo ka daaweynaya cudurro ay ka mid yihiin kuwa maqaarka, kuwa carruurta, kuwa haweenka iyo cudurrada guud. dhaqaatiirta halkaa ka howlgashay howlwadanaduba waxay diyaar u yihiin inay wixii caafimaad ay kula qabtaan. kulanti wanaagsan asxaabay meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeena habeenimo. waxaynu ku bilaabaynaa Gaza xaaladdu way ka sii daraysaa marba marka ka dambeeya. Israa'iilna duqaymaha ay ku hayso halkaa way sii kordhisay. barnaamijkankii ka horreeyay waxaynu ku sheegnay tirada dadka dhintay saakii ilaa hadda keliya inay 28 maraysay. waa barnaamijkii galabnimo. hadda oo caawa ah warbixintii ugu dambeysay la soo saarayna waxay sheegaysaa 37 qof in markaa ay marayaan dadka maanta keliya ku dhintay. aroortii saaka ilaa caawa inta ku dhimatay Gaza waa intaas 37 qof sida la leeyahay. haddaba waxaa la sheegayaa Israa'iil inay sii xoojisay weerarkaas ay ku hayso Gaza iyadoo xaaladaha bini aadannimo cunto la'aanta iyo dawo la'aantana ay u dheer tahay reer Gaza. haddaba qodobka halkaas aynu kaga gudbi doonaa waa arki doonaa wixii reer Gaza xaaladooda ku soo kordha. annaguna mar walba waxaan u baryaynaa Allah subhanahu wa ta'ala in mushkilada iyo dhibaatada ay ku jiraan uu ka dulqaado. qodobka labaad barnaamijka waxaynu ku faahfaahinaynaa dab xoog leh ayaa duurkii maanta waxa uu ka kacay dhinaca galbeed buuraha Qudus ilaa inta u dhaxaysa Tel Aviv. wuxuu sababay dabku si fudud ayuu ku socday
waqti kooban ayuu dhul fara badan dab ku qabsaday magaalooyin iyo tuulooyin dhowr oo yuhuuddu deganayd ayaa la bilaabay in dadkii laga daabulo oo laga raro halkaas netanyahu iyo mas-uuliyiinta amniga ayaa markiiba waxay tageen ghurfatul camaliyaad meesha la yidhaahdo ama qolka laga ogaanayo howlgalladu halka ay ka socdaan musiibadaas oo bilaabatay ee gubaysa israa'iil haddaba sheekadu marka halkaa ayay maraysaa qolyihii marka ka shaqaynayay damdamiska oo dabka ka hortegayay ee la tacaalayay waxay sheegeen in xaaladdu ay ka weyn tahay inta loo malaynayay oo aysan tabarba u hayn dabkan inay ka hortagaan wixii karaankooda mar kasta oo ay damiyaan dabku meeshu waa kasii kacayaa haddaba waxay keentay kumanaan dad ah in la daabulo caawa aan idinla hadlayo dad fara badan ayaa weli magaalooyin iyo tuulooyin laga soo rarayaa dabkuna wuu sii fidayaa sida la leeyahay haddaba social mediaha ama baraha bulshada ayaa dadku waxa ay kaga hadlayaan fikrado badan oo ku saabsan dabkaas qaar waxay leeyihiin waa musiibo rabbaani ah oo halkaa ka kacday qaar waxay leeyihiin waa ciqaabta xadgudubyadii ay israa'iil samaynaysay muddooyinkan oo ay kula kacaysay dadka masaakiinta ah ee reer falastiin gaar ahaan reer gaza marka mushkiladaas ayaa israa'iil ka taagan xaalku markaa aada usii kululaanayaa marba marka ka dambaysa hadda oo aan idinla hadlayana dabka weli dagaalaa lagu hayaa waxaa hadda la kiciyay erokobtaro iyo diyaarado ka hortagaya dabka oo biyo kusii daynaya si bal dabka loo damiyo welina waa dami la'yahay oo meeshii la damiyaba horay kasoo kacaysaa wax yar kadib marka sheekaduna cirkaasay maraysaa haddaba waa arki doonaa wixii arrinkaa kasoo kordha barnaamijyada dambe ayaan idinkugu faahfaahin doonaa qoyskii uu ka soo jeeday askarigii yuhuudda ahayd ee ay haysteen alqasaam oo maanta laga hadalsiiyey ayaa waxa ay soo saareen war waxay sheegeen nin yahuud ah ama israa'iili ah oo god hoostii oo gaza ah ku jira oo kaalmo weydiisanaya dowladdiisa iyo shacabka israa'iil oo haddana dowladdii ay waxba u qaban la'dahay iyadoo awoodi karta inay ninkaa ka soo saarto meesha oo ay oggolaato shuruudaha qolada haysata iyadu maadaama aysan awood ku soo furan karin ninkiina uu xataa khatartaa ku jiro waxay tiri ceeb iyo fadeexad ayay ku tahay dowladdeena waxaa dhahaya qoyskii ninkaa askariga oo kasoo jeeda ninkaa askariga waxaa la camuri waa 48 sano jir xamaas waxay soo qabsadeen bishii October 23 markii ay weerarka ku qaadeen 23 sanadkii 2023 bishii October ayay soo qabsadeen markay weerarka ku qaadeen saldhigyada ciidamada Israa'iil ee gudaha Israa'iil ninka marka baanta aad buu u qayliyay wuxuu sheegay inuu musaacado u baahan yahay in la soo daayo u baahan yahay qoyskiisu marka waxay yiraahdeen dawladdu fadeexaday ku tahay in dadkii Israa'iiliyiinta ahaa ee dhibaataysanaa ay soo badbaadin wayso iyadoo awoodi karta waanta waxay awoodi kartaa yiraahdeen in wixii shuruudaha ay buuxiso kadibna dadkaas oo dhan ay la soo baxdo laakiin dawladdu ma sameynayso midda kalena awood ay dadkii ku soo saaratana ma haysato marka dadku meesha ku dhinteen ha ku baabay laakiin waxay leedahay anagu waa sii wadi doonaa ilaa inta uu wiilkeena ku soo biirayo qoyskiisa sheekadaas halkaas maraysaa qadar xayisiisa kadib waxaan u gudbaynaa Netanyahu oo mar kale u hanjabaya Iran xilli Mareykankana uu ka shaqeynayo in wada hadal iyo isfaham uu la gaaro Iran sheekadu marka halkaas ay maraysaa haddaba xayisiinta kadib ayaan u gudbaynaa waalidiinta magaalada Muqdisho ku nool waxaa loo hayaa war farxad leh waxaa laga furay wadada Sodonka X Hotelkii Caamir macahad cusub oo lagu magacaabo Beacon International Academy waxaa jooga macallimiin aqoontoodu sareyso dibaddana lagaaga keenay cunugaagu wuxuu fursad u helayaa inuu helo waxbarashada caalamiga international GCSE-ga
shahaadadiisu waxay noqon doontaa mid la aqoonsan yahay sidoo kalena uu jaamacado dunida uga heli karo. waxaa loogu talagalay macadkan caruurta dibadaha ka soo noqday inay waxbarashadooda sii wataan oo ay kaga faa'iidaystaan. sidoo kale fursadan waxaa iyana ka faa'iidaysan kara caruurta gudaha oo iyaguna fursadan ka heli kara waxbarasho tayadeedu sarreyso. haddaba isqoristu way socotaa, hore u gaar macadkan cusub ee Beacon International Academy. sharikadda Imara Luxury Homes waa sharikad guryaha casriga ka dhista magaalada Nairobi ee dalka Kenya. haddana waxa ay ka wadaa dhismaha loo yaqaano The View xaafadda Parklands jidka 6 Avenue City Park. dhismaha The View waxa uu leeyahay adeeg kasta oo asaasi ah, waxaana uu ka kooban yahay sida 2 qol, 3 qol, 4 qol iyo weliba qolkii shaqaalaha iyo 4 qol oo 2 dabaq oo isdul saaran. waa nooca loo yaqaano duplex. haddaba iminka waxaa socda barnaamijka sharikaddu ay u bixisay 90 days promotional, kaasoo la magac baxay hoyga waa muhiime hanti yeelo, waana qiimo dhimis 50%. kala xidhiir telefoonada ka baro markaska daarutaqwa qur-aanka kariimka, higaada, culumta shareecada, luqadda carabiga iyo tarbiyadda awlaada hab casri ah online. wixii faahfaahina kala xidhiidh nambarada shaashada kaaga muuqda. kulanti wanaagsan mar kale asxaabay meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijkeeni habeennimo. waa habeennimo Arbaca oo Khamiis ay soo galayso. haddaba qaybtan ugu dambaysa waxaynu ku faahfaahinaynaa Netanyahu wuxuu doonayaa mar walba in dhibaato la gaarsiiyo Iiraan, la weeraro. wuxuu ka shaqaynayay in Donald Trump uu arrinkaa qayb ka noqdo, laakiin Trump iyo kooxdiisu waddo kale oo nabad iyo wada hadal iyo ayay qaateen. intaa uga muusan harin, weli wuxuu doonayaa in uu reer galbeedka oo dhan ku soo jeediyo Iiraan. markaasuu hadal uu maanta jeediyey wuxuu leeyahay haddii ay naga guulaystaan Iiraan iyo kuwa mayalka adag ee la socda mushadadiinta macnaha iyo awlaadeeda hadday naga guulaystaan, annaga keliya naguma koobnaa doonto waxaa ku xigi doona Yurub iyo reer galbeed. marka waa in inta aanay annagu naga guulaysan, annagu isaan uga guulaysan lahayn Iiraan ay ka shaqeeyaan. annagu wuxuu dhahay waa furuntii anahay, dadka ugu horeeyaan nahay. haddii annagu nala jabsho Maraykan iyo waxay jabinayaan haddana iyo reer galbeedkii kale iyo Yurub iyo dadka iyaguna way ku soo xigi doonaan. marka si aysan annagu nooga adkaan, warkaa inaan ka adkaanaa, annaguna ay nagu taageeraan uu leeyahay. marka Iiraaniyintuna waxaas dheg jalaq muusinayaan. kulankii maanta loo ballansanaa in gudiyada farsamo ee Maraykan iyo Iiraan is arkaan maanta Arbaca, isaguna horaadii ku sheegay wuu baaqday. kii Sabtida ayaa la sugayaa ka dhici doona Masqad, kaasoo dhex mari doona wafuudda labada dhinac kala hogaaminayaan wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan Abbas Araghchi iyo ergeyga Trump ee la yiraahdo Witkoff. Abbas Araghchi waxaa la sheegay inuu yahay khabiir dhinaca hubka nuclearka iyo doodihiisa aad u yaqaana. sanadkii 2015 doodii kululeed ee reer galbeedka iyo Iiraan dhex martay ayuu guulo waaweyn ka keenay leeyahay ninka hadda wasiirka arrimaha dibadda ah Abbas Araghchi ninka la yiraahdo ee Iiraan. haddaba waa arki doonaa. dhanka kale barnaamijkaygii saakay oo aanu ku soo qaadanay Iiraan inay qabsatay maraakiib shidaal waday oo tahriibinaysay, in weli wax war cusub uusan ka soo kordhin, laakiin ciddii doonaysa waxay daawan karaan barnaamijkaygii subaxnimo oo arrintaa aynu si weyn uga faahfaahinay. barnaamijkii habeennimo intaa ayaan kusoo gabagabeynayaa. fakar iyo aragti waa noo muhiim, kusoo qora qaybta commentiska ama fariimaha. barnaamijka haddaad ku cusub tahay pagekeenna Nadaara Show ee Facebooka fadlan follow garay. haddii aad sidoo kale ku cusub tahay channelkeena Nadaara TV ee YouTube-ka subscribe-ka ka iloobin. inta aan mar kale kulmayno asxaabay meel kastoo aad joogtaan, nabadgelyo.